Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ee aanu kusoo urureynay gabayadii kala duwanaa ee ay tiriyeen gabayaashii Soomaaliyeed ee kala duwanaa. Haddaba maanta waxaanu soo qaadanaynaa gabay ka mid ah gabayada caanka ah ee uu leeyahay Maxamed Cumar Dage, gabaygaas oo la yiraahdo Gaaladan Iscayntaari. Haddaba gabaygaas ayaa Maxamed Cumar Dage wuxuu tirinayaa dagaalkii labaad ee adduunka intii lagu guda jiray. Maxamed Cumar Dage oo sidii aanu kusoo marnay silsiladii Gubo oo aanu idin soo qornay ee taxanaha ahayd gabayaasha kusoo biiray isagoo aad u daayar, ayaa gabaygan wuxuu ku sheegayaa in dagaaladan islaynaysa oo isdhammaynaysa oo iyagu mid ku duulayo ay tahay calaamadihii qiyaamaha oo dadka la dhammayn doono. Sidoo kale Maxamed Cumar Dage ayaa sheegaya in awoodda iyo xukunka adduunka ay u dambayn doonaan Islaamku oo ayagu cududda ugu dambaysa ay yeelan doonaan. Wuxuu kaloo caddeynayaa haddii diinta lagu dhago in aan wax ciqaabo xag Alla ka timid aysan imaanayn. Wuxuuna ku bilaabay sida tan: Eebbow casiisow, adaa caadiloo taline, dadkii cudur ka yaabaa diloo lagu cabsiiyaaye, waxaa colkiisa laga khoofayaa caasi gaalo ahe, cadwa nimanka yaallaan hurdada caafimaad ladine, awbaartii xamar looga caag calafkii dheefeede, carradaynu joognana waa caabuq lagu reebiye, Faransiiska soo cararayee amanka tuuraya, iyo Talyaaniga colkiiyo bursashada looga caal waayey, ee cagaha meeluu dhigiyo ciirsashaba waayey, Jarmalkan caddaan iyo madow qolo ka ceesaynin, colka dumay cawayskii marshada soo cidgeli weyday, cadka waaga ciiryaamada cadar la moodayo, cirka waxa la laayeen lahayn cago iyo raadtoona, iyo saarka ciyaayeen ladayn cawo iyo layltoona, ee aan cashana joogsanayn sano col weeyaane, rabbinama cidhiidhiyine dad waa cabsanayaae, cawiyaha badeed maydku waa cawskan oo kale ah, mawjadaha dhiiggii camiray maayada caseeye, cumdow dhimo coomaadiba cunay raggoodiiye, Ingiriis ka soo carar hadduu cadan ku fiicnaaye, 20 lag baa laga diloo calankii soo duubiye, wuxuu ciidan iyo xoog lahaa ceejiyaa helaye, London kuma caweeyaan kobtay cudud u yiileene, eegada dadkii caydhsan jiray dirirkii caatowye, caatiba la'aan buu bankii ceeg u soo degaye, Rabbow caynsha mooyee ninkaa saanad lagu ciiriye, caawimo haddii uu doonana waa caynka raaciye gaaladan iscayntaarin ee la isku cayn qaaday, ee qaarba qaar cunahayee caymo kala weyday, culimmadu siday sheegeen waa camal jihaadkiiye, caalamkana Islaamka u dambayn cudud la sheegtaaye, cilmi qaarkii laysma cudriyee cayn kalaa imane, mar buu dirirku noo curan oo ceeshna loo furiye, ciqaabna ha ka yaabina haddii diinta la cusleeyo, ayuu yidhi Maxamed Cumar Dage.